بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. إلهي عافمات بوحو كامل هنا وضسيه نور يارق وناسنيه إلهي نوضسيه إنه وحويان حبناها أقول قال سمرك الله إيغو dareemayaasha aan u leenahay halka ay ku yaalaan iyo qaabka u shaqeeyaana waa qaab qofku aad ula yaabaya xaqiiq ahaan. indheena markaad aragto xajmigoodu ma weyna, aad u yar yahay, qafas bay ku jiraan. xagga sare laf baa ka xigta, xagga hoosena laf baa ka xigta, dhinacana laf baa ka xigta, dhinaca laf kale ka xigta, xagga dambena laf baa ka xigta, jiho walba laf baa ka xigta ilaa jihadan soo qofku wax ka arkaya mooye. jihadaana dahaadh baa saaran oo baalka marra furmaya marra xidhmaya ayaa saaran oo ilaah ugu talagalay. ilbiriqsiga baalka xidhmaya furmaya shaqo badan buu qabtaa, indhaha ayuu qaleelka ka ilaaliyaa. qofku waxaa la yidhaha maalintii 16 kun oo jeer ayuu ilbiriqsidaa, 16 kun oo jeer. ama dadka soo jeedkoodu badan yahay 20 kun oo jeer baa way gaadhaanba. qofka haddaana duhurkii seexan oo kale ilaa 20 kun oo jeer bay gaaraysa ilbiriqsi gaaraya. ilaahay indhaheenna wuxuu ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale ilaalinaysa. ilmadaasi way dhammaataa markaa salaas wax soo kacdo oo labada taagan tahay way yaraanaysaa. weliba dadka indhaha ka shaqeeya dadku way kala duwan, qaarna xoogay ka shaqeeyaan, wastaadada iyo maarata nijaarka iyo ragga muruqmaalka indhaha jirkay ka shaqeeyaan. laakiin ardayda, dadka wax akhriya, dadka ka shaqeynaya waxa ahaan yara mechanical-ka indhaha aad ugu baahan. waxa weeyaan haddii labada duhurnimo la gaadho, indhaha ilmadii dufanka lahayd ee borotiinka lahayd ee nafaqada lahayd ee xalay la soo saaray way yaraanaysaa. weliba dhallinyarada hadda xafiisyada ka shaqeysa kombiyuutarada ku shaqeeya ayaa ugu sii daran. maalinta dhan kombiyuutar ku eegayaa, marka waxba laga yaabaa isagoo intaan 12 la gaadhinba 12 inay ka dhammaataba ee dhaci karta. marka maxaa imanaya waxa la yidhaahdo jafaaf, dry eye. jafaafku waa waxa ugu badan ee dadku noogu yimaadaan. dhakhaatiirta indhaha sababta loogu tago ugu badan waxa weeye indha qallayl dadkii ay ka cabanayaan. marka tacaaliimta islaamku waxay noo tilmaamaysaa qofku duhurku inuu seexdo. qiilu fa ina shaydaan laa yaqiil. haddaad duhurkii seexato, jafaafkaa faraha badan waad ka maaragtay magan gelaysaayo. intaad huruddo, saacadda aad huruddo ayaa ilmadii dufanka lahayd la soo saarayaa. indhaheennu intay hurdaan bay soo saaraan ilmada dufanka leh, borotiinka leh. marka adigoo mar labaad lagu soo saaray ilmadii borotiinka lahayd, dufanka lahayd ee ishii baalka ilaalinaysay, ayaad casarkii soo toostaa. casar ilaa 9 habeennimo waxaa tahay free oo indhaha waxa weeyaan fulna way yihiin, maaragtay dufankii loo baahnaa way leeyihiin, borotiinkii loo baahnaa way leeyihiin, isma xoqayaan, isma dareemayaan. wixii 10 ka dambeeyana waxa bilaabanaysa inay yaraadaan. ilmadii dufanka lahayd way yaraanaysaa. marka waxaa bilaabanaya qofku inuu dareemo indha qallayl, indha isku qabqabto, qallayl uu dareemo, ilmo uu dareemo. ilmada badan ee imanaysa waa jawaab maskaxdu ka bixinayso. marka indhuhu qallalaan, maskaxdu amar bay bixinaysaa. 2 qanjiro halkaa ku yaallo oo lacrimal gland la yidhaahdo oo iyagu ilmo caadiga soo saara, ilmada caadiga ah ayaa biyo badan soo daynaya. marka qofkii biyahan badanna way dhibayaan, indhihiisuna way qallalan yihiin. marka qaleelkii baa wuxuu keenay biyo badan inay indhihii yimaadaan. ciladaas waa cilada ugu badan ee dadku dhakhaatiirta ugu tagaan. waxaana daweeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuuna faray duhurkiina inaan seexanno, habeenkiina naga reebay inaan soo jeedno xilliyada dambe, cisho wax ka dambe in la soo jeedo naga reebay. marka waa sunne maaragtay caafimaadka indhaha qayb weyn ka qayb qaadanaya. sunnaha kaliya qofka raaca waxa weeyaan caafimaadkiisa indhuhu wax weyn ayay runtii ay ka taraysaa. taas waa qodob. anigu qodobadan doonaya waxa weyn aan ka hadlo
waxyaabaha ugu badan ee dadku dhaqaatiirtu ugu yimaadaan aan cudurka ahayn ama laga hortagi karo marka indha qaleelkaasi wuxuu keenaa inuu markay qalalaan wuxuu keenaa indhihii marka hore ishii baalkii maadaama ay 16 kun oo jeer bay isxoqayaan waxa weeyaan inta ay ilmada dufan kale borotiin kale ay jirto isma dareemayaan waa lubricant taas oo dhaxaysa isma taabanayaan isma dareemayaan ama markay dhamaato isxoqayaan markay isxoqaan nabarro yar baa sameysmaya qofkii saxaro badan buu dareemayaa indhii baa casaanaya midabkooda waa isbedelaya finan baa marka dambe ka soo baxaya meelihii nabarrada yar ay ku sameysmeen jeermis baa raacaya finan baa ka soo baxaya baalashay ka soo baxayaan indhaha guruxna wuxuu noqonayaa gurux aad u cas yuu noqonayaa marka qofkii waxaa ku bilaabanaysa markaa wuxuu araggiisa inuu hoos u dhaco maarata uu dareemo ka hornayaysa qaybtan madow oo maarata muhiimka ah u dhan inay dildilacday ayaa laga yaabaa marka waa mushkilad aan jiri jirin berigii hore oo hadda soo korodhay waxaana soo kordhiyey waxa weeyaan isticmaalka badana shaashadaha iyo qaabkii hurdada loo seexanayo isbedeshay oo qofkii laga yaabay habeenkii inuu xilli dambe gaadho 12 kooda uu gaadho duurkiina aanu seexano kale marka dhalinyarada aad waxaan kula talinayaa waxa weeyaan in dhaqanka la iska bedelo oo qofku habeenkiina xilli hore uu seexdo duurkiina hadaanu shaqeyno oo firaaqo leeyahay inuu seexdo saacad ama saacadii badh wax weyn bay qofka maskaxdiisana taraysaa indhihiisana taraysaa waliba waxa la ogaaday qofka fahamkiisa markuu duurkii seexdo kor buu u kacaa fahamkiisa gelinka dambe kor buu u kacaa haddaan laakiin duurkii seexanin fahamkiisa gelinka dambe wuu hooseeyaa waxaa la mid ah qofka hadduu barqada 12 kale jaanis helo seexdo way ku filan tahay nus saaca ku filan dadka qaar 10 daqiiqo ku filan laakiin waa in qofku time yar uu helaa oo kaga faa'iideystaa qodobka labaad doonayaan ka hadla waxa weeyaan mashaakilka ugu badan ee dadku noogu yimaadaan ah biyaha indhaha dila waa maqasheeno waxa la indhaha biyaha ku furma biyahaas indhaha way dilaan waa run biyahaas way jiraan xagga dambe indhaha kaga jiraan ma soo baxaan laakiin markay biyahaas bataan qofka xididka dabka qaadayay ayay dilaan indhaheenu qaabku u samaysan waxa weeyaan ishu waxa ka dhigan tahay sida leerkan oo kala qiyaastii guluub iyo wire iyo machine soo maaha ishi waxa weeye waa guluubkii wire-ki waa xidid optic nerve la yidhaaho oo dabka qaada halka ugu dambaysa waxaa ku jira centerka aragga qofka haddii halkaa budh lagaga dhufto horu ka indhabeelayaa waayo centerkii aragga ayuu saameynayaa ilaahay wuxuu ku qariyay centerka aragga maadaama haddii wax gaadhaan qofka aanu uu saa ku indhabeelayo meel muhiima oo halkaa ku beegan qadaadkaa dambe ku beegan oo si fudud aan waxba ugu dhici karin inta badan waliba laftuna halkaa way ka adag aad bay uga adag tahay lafteena qadaadku halkaa way ka adag tahay meesha halka ku beegan centerka aragga lafteena aad bay uga adag tahay xataa dhaqso uma jabto meelahan kale marka loo eego iyada ka adag waayo ilaah baa halkaa ku ilaalinaya centerka muhiimka ah marka indhaheennu waxay u shaqeeyaan sida leerkaasoo kale waa guluub iyo wire iyo machine ishii iyo xididkii iyo centerkii aragga keenayay biyaha halista ahi ma soo baxaan weligood haddaad maqasho hebel indhaha biyaha ka dilay markaad tidhaahdo indhahaaga biyaha ku furmo kaa dilay kaama yeelayo waxa ku weligayba indhahayga ma ilmeenba maba ilmayaanba xagta keenta biyaha marka biyahaas waa biyo xagga dambe ku jira isha kaga jiraan xididka dambey dilaan markay bataan waxay leeyihiin cabiraadooyin kala duwan 10 15 20 ilaa 24 waa caadi haddii 24 kor dhaafaan 30 markay gaadhaan qofku ma dareemayo laakiin xididku wuu dhimanayaa wuu dhaawacmayaa 35 haddii gaadhaan ma dareemayo xididku wuu dhaawacmayaa 40 haddii gaadhaan ma dareemayo xididku wuu dhaawacmayaa qofku marka sanado fara badan marka pressurekaasi uu jiro marka dambe xididku wuu dhimanayaa qofkii wuxuu dareemayaa xoogay araggiisa inuu hoos u dhacay dhakhtarku wuu imanayaa wuxuu leeyahay muraayadaha lee qoro waa la eegayaa wuxuu leeyahay indhahaagu waaba dhinteenba 95% way dhinteen 5 baa ku nool marka biyahaasi waa biyo aan la ogaan karin anigu ma ogaan karo inaan qabeen kale in la eego mooyee oo dhakhtar eego mooy ma ogaan karo qof ogaan karaana ma jiro
ilaa dhakhtar uu jeegareeyo eego oo biyaha cabiro oo xididada baadho waliba xididka marka la eego ayaa laga ogaanayaa marka taa waxaan kula talin lahaa dadka waaweyn qofka hadduu 40 ba gaadho inuu iska jeegareeyo oo sanadkii ama labadii sanaba hal mar la eego si loo hubiyo biyahaas inay ku soo socdaan kale dhakhtarkana kuu sheegi karo ku odhan kara waxa weeyaan sanad kadib aad u baahan tahay in lagu celiyo lagu baadho 6 bilood kadib 2 sano kadib 10 sano kadib dadka qaar baa leeyahay adigu inaa isfiicayna waxba uma baahnidba marka jeekinka ayaan la mogaanin waayo waxa noo yimaada maalin walba maantana ugu dambeysay hadda galabta ay ugu dambeysay waxa noo yimaada dad iska wanaagsan oo xooga laakiin indhahooda ay dhinteen weligay indhahu ma xanuunin laakiin xanuunkaas 30 sano hayay inta badan biyuhu markay indhaha ku furmayaan habeenay maalin kuma dilaan aragga laakiin way soo jeetamaan 10 sano 20 sano 30 sano iyo soo jiraan marka qofku waxa laga yaabaa 30 sano kadib inay dhatiraan markuu ku yimaado waxa kale weligay indhaha waxba kama dareemin waana xooga oo 60 jir ama 50 jir maca dalka waxa arkaa dhalinyaro hataa marka qaar kood loo arkaa dhalinyaro yar oo xooga maanta nin aqalayno dhalinyaro aha 30 jir buu ahaa laba indhood biyaha kaga furan 95 way dileen labadaba marka biyahaas waa wax ugu khatarsan ee runtii dadkii de maartay qofkii iska socdo aan waxba dareemin leeyahay waa biya ka dilay marka horta biyaha la iska jeegarayo goobaha maartay qofku inuu maartay sanadkii hal mar ama labadii sano mar tago isjeegarayo waa muhiim jiddan arrinkaas waa inuu waa qaale inay meel cidla ah ay kaaga baabaan waa laga wanaagsan yahay marka biyaha laga hadlayo aan ka hadlayna waxa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee xagga dambe ku jira ee aan soo bixin biyo labaad baa jira oo soo yara taabto ah biyahan indhaha ka imanaya biyahan markay badan yihiin waxay ka yimaadaan qanjidha halka ku yaala halka wax ku yaala laba qanjid oo la yiraahdo lacrimal gland waa kuwa qofku markuu ooyo biyaha badan soo daayo weeyaan iyagu biyahoodu waxa weeye biyo aan dufana lahayn borotiin lahayn biyo caadi ah marka shaqadii la doonayay ee ahayd in ishii baalka kala aalay ma kala aalanayaan laakiinse way maartay way ishu qoynayaan qofka laga yaabee inay dhibaanba mar walba ka tirayo iska masaxayo oo tiro marka maxay ku imanayaan kuwaasi marka kuwii dufan kala la waayo ayaa kuwa la soo deynayaan iyagu dhibaato ma laha hadduu qofku hurdo fiican seexdo way iska baabaayaan kuwaas ama isticmaalka indhaha shaashadaha faraha badan oo iska yareeyo kuwaas inta badan inta lama arko laakiin mushkiladoodu waxa weeyaan waa wax ugu badan ay dadku ay ka cabanayaan biyahaasi waliba qofku markuu weynaado biyahaas way yara bataan waxa laga soo daayaa lacrimal gland indhaha meedhaan $2 ku yaala ayay galaan marka laba qoloba biyahaas aad bay u bataan ilmuhu markuu yar yahay daloolkii $2 ilmadu galaysa ayaa cidhiidh ah markay ilmadu yara badato daloolkii وسيرا ما قليان قيب قليسا قيبنا يسود هذا نيسان مركا المير أو إنها كإلمينية واحد بعت أملها دلول كيس في عريرية مركو سوكره وده يسويناته دلول كله وينانية وفرمية عاد يقول لي دونت المدي لكن هو يوم فربدن قارب كسر صفر لاس عانود أما ميجا فوكي مادة المهن إنديه سا إلمينية كلي يوجي مادة مركا قرابتي هلا وجيسيو المكلي هذا يتحد بعت أملها هذانا حفش لهين وعصان لهين ونعون لهين وحويان المدى هالك على قصة صار إنها ميريسي ميله جليسي بعيدة مركا مركو صوكرة عاد صون غنية مركو صوكرة وحلاقي سنة لابد سنة مركو قادو توبدي وفر ميسا عاد وجليسا مركا بهنا إن الله سفرنا بهنا ما رتي أنا جو حنفليا ملا ما تدخل كل يوم بعد بقولك بصدن هو يوم بيبدأين كعبنا كلية المهيجو indhihi ayaa ilmeynaya marka ilmadaasi wax dhibaato ah ma laha marka saddex nooc oo biyaan sheegnay indhaha gala mid waxa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee rabaan la iska baaro xagga dambe ku jira kuwaas waa khatar weeyaan kuwan waxa weey kuwan dufan kale ee borotiin kale ee qofka u wanaagsan ee ilaalinaya oo iyagu waxa soo saara xirribaheena gudahooda laga soo saarayo maartay qanjidha yaryaro yaa soo saara halka ku jira qanjidhaha soo saaro iyagu waa faa'iido badan bay leeyihiin kuwa saddexaadna waxa weeyaan kuwa halka laga soo saaraya
maarta iyagu qudhooda waxay ka qayb qaadanayaan meedhista indhaha marka dabaysha iyo siigada iyo saxradu ay ku dhacaan meedhistaas ka qayb qaadanayaan qodobkii sheekhu sheegayay ayaan rabaa halkan inaan wax ka idhaahdo isha haddii saxar yar ku dhaco oodan arkaynin saxar aad u yar horta ma xamili karto haddayse dhacdo inay saxaradan aadka usii yaryare maaragtay dabaysha iskala socde marka daaqadda la furo aad arkaysa inay saa iska socdaan kuwaas indhahayna way galaan laakiin waa la ururiyaa biyahaasay raacaan biyahaasaa maydha biyaha kor ka imanaya ayaa maydha halkaas ku uran qofku marka waxa la markuu saa yidhaahdo inuu xafasho yar meelaha ka dareemo xafashada yar dareemaysa waxa weeyaan waa saxaradii yaryaraa ee ilmada soo raacay indhaha ku dhacay oo halkaas soo ururaya waayo waxay indhuhu doonayaan inay halkaa ka saaraan tuubooyinka laga saarayo ilmada inay raacaan laakiin maadaama yari waaweyn yihiin ma raaci karaan tuubadii halkaas ku hakanayaan marka subaxii qofku waxa laga yaabaa inuu meelaha subaxii ka dareemo wax yaroo adag oo xafasho yaroo kale ah waa saxaradii shalay galay maaragtay oo meeshu ku ururay ama qofku maalintii markuu shaqaynayo kale uu suuqa marayo dabeel badan ku dhacaysa cabaar duhurtii markii la joogo dareemay meelaha inay cadcadaan yar ka soo fuulo yaa laga yaabaa marka waa saxarada yaryar aan maaragtay ilmaaragtadaya oo aan qofku waxba yeelin laakiin wax intaa ka weyn oo ishu qaadi karta ma jirtaba dhibcahan indhaha lagu dhibciyo laba dhibcood ishu ma qaado dhibco kaliya qaadaa hal dhibco kaliya markaan saa ugu dhibciyo hal dhibco baa ku dhacaysa mid labaad ma qaadayso ta labaad soo daadanaysaa marka meelay wax ka galaanba ishu ma laha dad baad arkaysa waxay ku leeyihiin ciid bay iga buuxsantayoo waxbaa layga geliyo waxbaa layga shubo xagga dambe maaragtay igaga jiraan marka ishu meel intaad arkayso meel ka hooseysa wax ka galaan maba jirtaba isha xagga markaad eegto halkay ku eg tahay xagga markaad halkaas ku eg tahay koraha adiga arka koraha adiga arka marka meel ay wax ku dhuuman karaan maba jirtaba baalkaa maaragtay yaan ku dhuuman karin oo qofku markiiba dareemayaayo isha uu marmarayaayo xanuun dareemayaa taasina waxa weeyaan biyaha iyo arrimaha ku saabsan qodobka kalen raba inaan ka hadla waxa weeyaan isticmaalka shaashadaha faraha badan ee nagu soo kordhay sanadahan dambe shaashadaha la isticmaalo waxa u badan mobilka tv-ga tabletka bahalkan balbalaaran ama ipadka la yidhaahdo iyo kombiyuutarada dhammaantood waxay leeyihiin cillado isku dhow dhow oo fara badan waxa la yidhahdo computer vision syndrome xanuunka laga qaadayay isticmaalka fara badan ee kombiyuutarka cilladda koowaad waxa weeyaan qofku waa anagani wuxuu u baahan yahay inuu maalintii 16 kun oo jeer ilbiriqsado saacaddii 1000 jeer bay noqotaa laakiin markuu mobile eegayo ama kombiyuutar eegayo ama tv daawanayo waxa weeyaan wax yaraanaya ilbiriqsigii wixii buu aad u xiiseynayaa uu ku dhagagayaa marka u qaybi waxa weeye 60 daqiiqo markaad u qaybiso 1000 maxay noqonaysaa daqiiqadii waxa la rabay qiyaastii in ay noqoto allah musta'an ya ما كونوا قايبين لحظة قايب ها خلاص لحية 8 جر أنا الدقيقة دي وين برمنت لحية 8 جر بالفين نقطة لكن واحد يقفك 5 6 أفر دقيقة إنه أنا اسكو قوام با ساس ما مركا تاسو حكينيسا إن هنا قلالان oo jafaafkii aan hadda ka hadlayay inuu soo degdego oo halka qofku u baahnaa 8 saac ama 10 saacadood qofku inaan indhihiisa marka caadi aan dareemeyn marka inuu dhaqso u dareemo ayaa laga yaabaa taas waa qodob qaleelka badan wuxuu keenayaa marka indhuunay qaybta madow dildilaacaan inay inflammation yeeshaan inay casaan far badan yeeshaan inay marka dambe maarta xanuun badan ay keenaan qodobka labaad ee muhiimka ah isticmaalka shaashadaha habeenkii uu keenay waxa weeyaan waa hurdo la'aanta dad badan oo xajir dhalinyaro ah oo habeenkii internetka aad u isticmaala qofku markuu aad u isticmaalo internetka habeenkii hurdadu way ka tagaysaa waxa noo yeedo dhalinyaro tiraaha anagu habeenkii ma seexanaba waa berigan seexanaa 4 seexda ama 3 seexda ama 2 seexda oo joogto ah hurdo la'aantaas marka waxay keentaa 16 cudur oo hadda la isku raacsan yahay 16 kama inay hurdo la'aantu qayb ka tahay markay yaraato qofku inuu hurdadiisu yaraato
qofku waxa la yahay 8 saac hurdo u baahan yahay habeenkii iyo maalintii marka la isku daro 6 saac ilaa 7 saac habeenkii ah iyo saacad maalintii maartay waa sidoo wanaagsan qofka hadduu xitaa 7 saac hadduu helo waa iska macquul laakiin qofku markuu seexdo habeenkii 12ka iyo wixii ka dambeeya hurdadiisu aad iyo aad bay u yaraanaysaa xanuunada marka laga qaado hurdo la'aanta waxa ugu horeeya macaanka ka mid ah waxa ka mid ah dhiig karka waxa ka mid ah madax xanuunka faraha badan ee joogtada ah dad badan ayaa waxay ka cabanayaan madax xanuun joogto ah madax xanuunkooda haddii hurdo wanaagsan helaan iska baaba'ayaan waxa ka mid ah indha xanuunkan aan ka hadlayno indhaha qalalaya waxa ka mid ah neerfaha waxa ka mid ah waalida waxa weeye hurdo la'aanta waxay keentaa waali bay keentaa waxa ka mid ah mawtul qaflaha waxa la tijaabiyey nin Chinese tijaabiyey waxaan tijaabinayaa bal intaan hurdo la'aan noolaan karo marka kafee badan buu cabaa khamri buu cabaa uu soo jeeda 12 cisho ay ku dhinteen qofka daana saxanin qofkii ugu badnaa ee soo jeed habeenii maalin soo jeeday qofkaas la hayo 12 cisho iyo 12 habeen aan daqiiqad saxanin markii dambana uu dhintay marka mawtul qaflaan way keentaa waxa kale keentaa hurdo la'aantu wadna xanuunka keentaa difaaca qofkuna aad ba hoos u dhacaa difaaca qofku cudurada ka difaacayay isna aad ba hoos u dhacaa arrimahaas oo dhan waxa keena hurdo la'aantana waxa keena isticmaalka badan ee shaashadaha la isticmaalayo waxa kale habeenkii marka lagu isticmaalayo shaashadahan meel madow waxa ka soo baxa waxa blue light kaas waxa weeyaan shabakada dambe ayuu dhaawacaa oo shucaaca ku furaa marka arrinkaas soo noqnoqdo waxa weeyaan dhaawac baa gaar marka dambe aan waxba laga qaban karin marka qaarkood oo qofka laga yaabo saas aragaysa inuu ama ku indhabeelo ama ku tagaba waxa kale ka mid ah isticmaalka badan ee shaashadaha carruurta yaryar haddii loo sii daayo aragooda fog aad ba hoos ku dhacaa waa ogtiin waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay arag fog iyo arag dhow ilmaha yar markuu soo korayo waliba 6 sano ugu horeysa 10 sano ugu horeysa hadduu aad shaashadaha oo isticmaalo eegida uu eegayo aragii dhawaaya xoogaysanaya laakiin fogaa baa lumaya marka ilmahaas wuxuu ku khasbanaanayaa inuu muraayad qaato muraayada la'aanteedna aan saboordi wax ka arkin waxa ugu badan marka keena in aragga maartay fog uu yaraado waa isticmaalka badan ee shaashadaha caalamka waxaan ka mid nahay wadamada ugu fiican ee maartay ugu indhaha fiican ma dhinac ka mid nahay laana waxa weeyaan waxa la qiyaasa Afrika dadka muraayadaha qaata waa 10% kaliya halka Yurub iyo Mareykan 70% ay qaataan ama 60 Indochina 85% ay ka qaataan marka qayb badan waxa ka mid ah ilmuhu markuu yar yahay isticmaalka badan ee iPad-da hadday soo badatay runtii waa arkaysaayo anagu iskuuladana screen baan ku sameeynaa iskuulada dadka ladan carruurtooda ay dhigtaan 30% 35% ayaa muraayada qaata ama u baahan inay muraayada qaataan oo marka teamka loo diro waxay soo saaraan 100 ardayba 35 iyo ka soo saaraan u baahan muraayada ama qaataba marka ama iskuulada dawladda dad yartu dhigato 5% 7% yaa la soo saaraa marka taa maxaa keenaya carruurtan dadka ay dhaleen aad waxa ugu badan isticmaalka badan ay isticmaalayaan TV-ga mobilkii shaashadihii kale iPad-kii game-kii marka carruurtan taa waxaan ku talin lahaa in laga joojiyo oo loo ogolaanin inay isticmaalaan ururka dhakhaatiirta carruurta ee Mareykanku sanad walba intaas oo digniinood uu ka soo saaraa wali carruurta yaryar laga ilaaliyo maartay isticmaalka shaashadaha oo yaa loo dhaweyn marka in aad looga ilaaliyo oo ayaa muhiim ah ilmaha iska ciyaaro waqtiga firaaqada uu leeyahay ha ciyaaro ha jimcisto laakiin waxaan dul fadhiyo dhibaato badan ayay gaarsiin kartaa qodob kale oo ka hadlay waxa weeyaan sanadahan dambe waxa soo batay xanuunka la yiraahdo macaanka ama maartay sonkorta xanuunkaas wuxuu keenaa dhibaato fara badan oo xagga indhaha ah haddii qofku aanu iska kontroolin macaanku wuxuu ka mid ah cudurrada maartay runtii fadhiga badan iyo cuntada badan iyo socod la'aantu ay qayb ka yihiin waatuu maalintii ugu dambeysay ka hadlayay Dr. Xuseen Xoog
haddii marka controlkaaga aanu fiicnayn waxa laga yaabaa inaadan xanuun kaar ka dareemin macaan kaar badan ma keeno laakiin controlkaaga haddaanu fiicnayn 10 sano 15 sano kadib indhaha xagga dambe dhiig baa ku furmaya xiidadii dhan baa dhiig ku furmaya qofka indhaha beela laga yaabaa inkastoo alxamdulillah hadda wax laga qabto oo irbado maarta wax laga qabto la keenay iyo laysaro wax laga qaban karo laakiin wax kasta waxa ka horeeya ka hortaga qofka hadduu macaan leeyahay inuu aad u kontrolo sonkortiisa oo uu dhakhaatiirta la xidhiidho mar walba isku dayna sonkortiisa ay xagga hoose jirta ayaa muhiim ah waxa kale muhiim ah oo macaan keena waxa weeyaan qofka addimadiisa dhiigga ka xirma marka in la gooyo laga yaabo adinkiiba inuu gangrene ku dhaco oo dhinto oo saa loo gooyo ama keliyuhu inay shaqada joojiyaan oo qofka la yidhaaho keliyuhu way fadhiisteen dialysis joogto ah in la meedhay u baahan yihiin keliyuhiisu intuu nool yahayba inta keli looga gelinayo marka waxaasoo dhan wax laga hortegi karaa waxa weeyaan qofku inuu macaanka kontrolo aad u kontrolo runtii inaasaan kusoo gabagabeynayaa